السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو جنالك موبايل عصب مالي والله حكاية بياركي وحاسب بحي تلفونك وخروح بدنا وكاميرا ذا فينا سنة كان تلفون كان وحالها نوفا اي 3 نوفا اي 3 وحكوري موبايل دهايو نوفا 3 هذا حكو صدرين اي لكن وحيابا يرير وقروحنا وكو صدرين اوكي يعني ورق كسي ديرانين وحاربا فول انفورميشن oo telefoonkan ku saabsan inaa idinka siiyo sida ogtihiin adduunka waxaa ka jira tartan aad u ballaaran oo dhanka mobilada waxaa soo baxay shirkado kala duwan shirkado cusub kuwa hore u jiray inta hadda waxaa boorka iska jafaysa shirkadii Nokia oo soo saaraysa telefoon cusub Nova 3i wuxuu la mid yahay Nova 3 marka isku fiirsid laakiin waxyaabaha kaliya ay ku kala duwan yihiin waxaa bag dambe ama maxaa la coverka dambe oo hadda glass laga soo dhigay oo very maxaa la bright marka iftiinka camal ah u dhaweysid ama qoraxda markay qabato uu dhalaala inkastoo waxyaabaha qaar ay ka siman yihiin laakiin xogeyn hadana wuxuu kala duwan yahay cabirkiisa telefoonkan waa brand new telephone kameradiisa waa ajab xaqiiqdii xitaa waxaa la sheegay inay ka qurux badan tahay kaameradooyin kale sida DSLR camera iyo waxyaabaha nooc inuu ka camera fiican yahay okay Nova i3 waxaa loo iibgeeyay suuqyo kala duwan oo caalamka haba u badnaatay maxaa la dhahaa suuqyada Asia telefoonka waxaa laga soo saaray China display-giisa waxa waaye 6.3 inch full HD shaashadiisa xogaa way yara balaaran tahay dual camera waaye front iyo back side back maxaa la dhahaa camera selfie-ga iyo maxaa la dhahaa rear camera labadaba waa dual camera batterigiisa waxa waaye 3340 mAh waa battery long life chargerkana si fiican u qaadanayo telefoonada kala camal ma ahin oo chargerka waqti dheer inuu ku buuxsamo uu qaadanayo telefoonkan chargerka markaa gelisid easy ku buuxsamaa telefoonkan waxaa lagu qalabeeyay ama lagu nashaqadeeyay high silicon telefoonka sidoo kale waa dual camera waaye telefoonka sidoo kale waa dual sim card laba sim card uu qaataa waano nano sim card waa ama micro sim card sida aad taqaanid waa laba sim card oo yar yar Android oo ku shaqeeya telefoonkan waxa la dhahaa Android Oreo 8.1 sanadkan telefoonada socda dhan yani Android-ka way ka wada sameeyeen yihiin oo maleysa shirkadaha cusub kuwii hore waxay wada isticmaalaan Android Oreo 8.1 kameradiisa markaa ka hadlayno telefoonka xaqiiqdii wuxuu leeyahay kamera cajiib wuxuu leeyahay 16 pixel oo front camera waxa waaye 16 pixel wuxuu kala wataa primary camera waxa waaye 16 pixel wuxuu leeyahay two sensors iyo secondary pixel front camera waxa waaye 24 pixel GB-giisa telefoonka waxa waaye 128 GB oo caadi ah waa hadii aad u baahato inaad sii kordhisid waxaad ku darsan kartaa 256 GB oo adoo isticmaalayo micro SD ama memory card connectivity iyo waxyaabaha uu aqbalayo mobilkan waxaa kamid ah 4G Wi-Fi Bluetooth wuxuu kala aqbalaa 4G sim cardada 4G ga sida hadda maxaa la dhahaa Airtel waxyaabaha noocaas uu aqbalaa sidoo kale culeyska mobilkan waxa waaye 169 gram waxyaabaha kale oo telefoonkan cajiib ku yahay waxa waaye wuxuu leeyahay notch display waxa kale hadii reero game aad tahay aad uu qurux badan yahay telefoonkan gameka marka lagu ciyaarayo ma arkaysid maxaa la dhahaa wax culeys iyo waxyaabahaas ama mobilka inuu kululaado ma dareemaysid waa very nice way kamerada hadii aad ka hadlo xaqiiq waa camera inaba caadi ahayn oo ka duwan mobilada kale aan ka soo hadalnay kameradooda mobilka hadii aad iibsatid waaba yani lacagta waa u qalmaa qiimaha hadda uu joogo waxa waaye $600 Nova i3 $600 jooga Nova 3 wuxuu joogaa lacag ku dhow $300 marka hadii aad fiirisid Amazon exclusive oo ka yahay waa ka baahi kartaa waxa retail ahaan u iibinaya hada Amazon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Share garee.